waxay soo tarayaa cabsida laga qabo in Masar weerar military ku qaado dalka Itoobiya kadib xiisad ka dhalatay biyo-xidheenka oo ay dowladda Masar ku guuldareysatay in Itoobiya ka hesho heshiisyo ilaalinaya xuquuqda shacabka Masaarida ee 100 milyan kor u dhaafaya. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni xulashada dunida oo aad kala socotaan markasta Horfadh Media, balse haddaad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo taabo subscribe si aad ula socotid wixii caalamka cusub. Masar ayaa sheegtay in haddii la xidho biyo-xidheenka webiga Niilka in shacabka reer Masar gali doonaan xaalad saboolnimo ah isla markaana ay soo wajahayso biyo la'aan daran. Isbeddelka saboolnimo ee dadka reer Masar ku imaan karta mustaqbalka dhow ayaa sii xoojisay xiisadda taagan oo ka dhigaysa inay gaarto saboolnimada halkii ugu xumeyd muddo laga joogo 10 sano. Haddaba The Grand Ethiopian Renaissance Dam waa biyo-xidheenka ay dowladda Itoobiya ka dhisayso webiga buluuga ah ee ku yaala gobolka Binishiqool ee u dhow soohdinta xadka Itoobiya iyo Suudaan inta u dhaxaysa masaafo dhererkeedu yahay 20 ilaa 40 kilomitir. Marka la dhameystiro wuxuu noqon doonaa biyo-xidheenka ugu weyn qaaradda Afrika, halka kaalinta 10aad ee adduunka uu ka gali doono liiska biyo-xidheenada ugu waaweyn ee soo saara korontada. Qiimaha dhameystirka ayaa lagu qiyaasay 4.7 bilyan oo dollar iyadoo la sheegay in Itoobiya ay doonayso inay 6 sano gudahood ku dhameystirto. Sida ay sheegeen khubaro reer Masar ah, waxaa jira walaac laga qabo inuu yaraado qulqulka biyaha Niilka iyo saamiga ay Masar markaasi ku leedahay. waxaa kaloo la sheegay in inta lagu jiro buuxinta kaydka biyaha ay Masar waayi karto 11 ilaa 19 bilyan oo mitir kuubig oo biyo ah sanadkii, taasoo sababi karta in 2 milyan oo beeraley ah oo Masaari ah ay waayaan dakhligooda inta lagu guda jiro buuxinta kaydka, iyadoo dhanka kalena 90% biyaha dalkaasi laga cabo ay ka yimaadaan webiga Niilka, taasina ay saameyn u geysato shacabka 100 milyan kor u dhaafaya ee reer Masar. waxaa kaloo xiisadda sii kordhisay waqtiga Itoobiya ay ku doonayso inay biyaha kaydsato, iyadoo la ogyahay in webiga buluuga ah uu maro 3 wareeg oo 20 sanadoodba, mid abaareed, mid dhexe oo ah roobab yaryar iyo xilliga la galo roobab culus oo daad leh, halkaas oo ay Masar ka dalbatay Itoobiya in la sugo sanadaha daadku socdo si ay u bilaabaan buuxinta kaydka biyaha. taariikhda iska horimaadka Niilka ma aha mid hadda curatay, laakiin sanadihii la soo dhaafay dowladda Masar waxay olole military ka bilowday dhulka Xabashida, waxayna labada dal isaga hor yimaadeen dagaalo ba'an oo labada dalba u arkeen halganka xuquuqda biyaha Niilka. iyadoo laga duulayo hadaladii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu sheegay bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay, isagoo sheegay in wadankiisu diyaar u yahay difaaca mashruucan biyo-xidheenka iyo in aanay jirin awood ka hor istaagi karta. waxaana isi soo tarayaa saadaalin hor leh in dagaal uu mar kale ka qarxo labadaasi wadan, balse aan eegno heerka awoodda military labada wadan gaarsiisan tahay iyo taariikhda laga soo maray dagaalka webiga Niilka ee labada wadan hore u soo maray. dowladda Masar waxay saaxadda awoodaha military soo gashay kadib markii la aasaasay dowladdii cusbeyd ee madaxda ka ahaa Maxamed Cali Baasha sanadkii 1805, taasoo ahayd waqtigii gabaldhaca boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo dalkaasi waqti badan soo xukumi jirtay. bartamihii qarnigii 19aad suldaankii Masaarida ee Ismaaciil wuxuu bilaabay inuu dhiso boqortooyo weyn oo ka talisa geeska Afrika iyo nawaaxigeeda iyo weliba ilaha webiga Niilka. sidaa darteed wuxuu aasaasay ciidan weyn oo Masaari ah oo ay hogaaminayeen qaar ka mid ah cadaankii reer Yurub. sidaas darteed dagaalada xilligaasi dhacay ee la baxay Gondaad iyo Goora waxay ahaayeen 2 dagaal oo aad u daran, khasaare ba'an u geystay Masaaridii, iyadoo Itoobiyaanku labada dagaalba si weyn u jabiyeen Masaaridii guulo waaweyn ka soo hooyeen, sida laga soo xigtay tixraacyo badan oo taariikhi ah. bishii December 1874 ciidan Masaari ah oo gaaraya 1200 oo askari ayaa ka dhoofay dekada Kasaale ee wadanka Suudaan, iyadoo uu hogaaminayay sarkaal reer Switzerland oo la oran jiray Munsinger, waxayna qabsadeen magaalooyin badan oo ka tirsan dhulkaasi Itoobiya. bishii Oktoobar 1875 ciidamo kale oo Masaari ah oo hogaaminayay korneelkii u dhashay Denmark ee la oran jiray Soran Arendoob ayaa waxay qabsadeen deegaanka Genda, waxayna ergo u direen boqorkii lixaad ee Itoobiya iyagoo ka doonayay inuu qaabeeyo xuduudaha. laakiin ergadii intii aysan gaarin boqorka waxaa ka hormaray war sheegaya in Masaaridu ay ciidamadoodu qabsadeen dhul ka mid ah Itoobiya. boqorka Itoobiya wuxuu xidhay fariinsidihii ka socday dhinaca Masar, isla markaana bishii Oktoobar 23keedii ayuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Masaarida.
ciidamada Itoobiyaanka ayaa helay warar ku saabsan in masaaridu xoojinayaan ciidamadooda gudaha dhulka Itoobiya oo qiyaastii ay gaarsiin doonaan ilaa 2,000 oo askari kuwaas oo hoos yimi sarkaalkii hogaaminayay ee Musingeer Basha ciidankaas oo ka yimid dekada Kassala halkaas oo Itoobiyaanku u dhigeen dabin isla markaana ku weerareen meel u dhow magaalada Adwa waxayna halkaasi kaga adkaadeen sarkaalkii Musingeer iyo dhammaan ciidamadii hogaaminayay taariikhdu markay ahayd 1875 bishii November 14 1875 waxaa kaloo la soo weeraray ciidamadii korneelkii Arandop ee ku sugnaa deegaanka Gondet xilliga ciidamada Masar waxay ka koobnaayeen 2500 oo askari oo ay hogaaminayeen saraakiil reer Yurub iyo Mareykan ah waxayna la yaabeen Itoobiyaanka oo waqtigaasi adeegsanayay hubka qoryaha waxaana halkaasi lagu dilay hogaamiyihii dagaalka ee la oran jiray Arandop iyo saraakiishiisii waxaa kaloo lagu dilay ninkii la dhihi jiray Arakil Nubar oo uu adeer u ahaa ra'iisul wasaarihii Masar ee Nubar Basha waxaana uu dagaalkaasi soo idlaaday markii la gaaray bishii November isla sanadkaas wax yar ayaana ka badbaaday ciidamadii Masaarida 12 bishii Maarso ee isla sanadkaasi Faransiiska ayaa yimid goobta dagaalka halkaas oo uu dhaawacyadii Masaarida loola cararay qonsuliyadii Faransiiska ee Massawa ku taalay kadib guuldaradii dagaalkii ka dhacay deegaanka Gondet waxaa mar kale curtay dagaal labaad oo la dhaho Goore ciidamada Masar waxay abaabuleen olole balaaran oo ka kooban 20,000 oo askari si ay dagaal labaad ula galaan Itoobiyaanka sanadkii 1876 waxaana hogaaminayay Mohammed Ratib Basha iyo generaal Mareykan ah oo la oran jiray William Lorin halkaas oo ay Masaaridu u gudbeen deegaanka Goore isla markaana xerooyin ka samaysteen halkaasi laakiin bishii November 5 waxaa ciidamada Itoobiya oo ka kooban 200,000 oo askari weerar ay ku qaadeen xerooyinkii ay samaysteen ciidamadii Masaarida waxayna ciidamadii Itoobiya ku hubaysnaayeen qoriyo iyo hal marfac kuwaas oo Itoobiyaanku dib u riixay oo khasaare culus gaarsiiyay ciidamadii soo weeraray ee Masaarida waxay kaloo ka qabsadeen hub aad u tiro badan markay ahayd Maarso 12 1877 ciidamada Faransiiska ee joogay magaalada Massawa ee Suudaan ayaa yimid goobaha dagaalka halkaas oo ay gurmad u fidiyeen ciidamadii dhaawac ahaa ee Masaarida sooyaalkii hore ee xambaarsanaa colaadaha iyo dagaalada ee u dhaxeeyay labada dhinac uma muuqan inuu dhamaaday laakiin wuxuu ku reebay xiisado wali ka dhex taagan labada dal ee Masar iyo Itoobiya sidaas awgeed sanadkii la soo dhaafay 2019 ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka dhawaajiyay wax u eeg saansaan dagaal kadib markii uu yiri haddii dagaal loo baahdo waxaan abaabuli karnaa malaayiin dagaalyahano ah oo Itoobiyana wuxuu kaloo sheegay in dagaaladu faa'iido u lahayn saddexda dhinac ee Masar Suudaan iyo Itoobiya isagoo sheegay inaysan jirin qorshe hadda waxyeelo loogu geysanayo Masaarida oo Itoobiyaanku damacsan yihiin Abiy Ahmed wuxuu kaloo carabka ku adkeeyay inay jiraan weeraro ku saabsan inay Masar adeegsan doonto awood military laakiin wuxuu sheegay inaysan jirin quwad ka hor joogsan karta Itoobiyaanka dhismaha biyo xidheenka dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda Masar waxay aad uga walacsan tahay isla markaana ka xun tahay warbixinadii ka soo baxay dhexdhexaadintii ee loo aaneynayay ra'iisul wasaaraha Abiy halkaas oo warbixinadaasi ay wasaaraddu ku aragtay tixraacyo diidmo ah iyo tilmaamo aan la aqbali karin oo la xiriira sida loola dhaqmayo faylasha dacwadda biyo xidheenka taasoo la yaab ku noqotay Masar oo u aragtay inuu xalka qura uu noqon doono dagaal horaantii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay wadahadaladii u dhaxeeyay Masar iyo Itoobiya ee ku saabsanaa mashruuca biyo xidheenka ayaa dumay iyadoo 70% ay Itoobiya dhismahaasi soo gabagabeysay kulankii madaxweynaha Masar Abdulfataax al-Siisi ee uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed 25 Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay ee magaalada Sochi ee dalka Ruushka halkaas oo uu ka dhacay shirkii Ruushka iyo Afrika ayaa wax natiijo ah aysan ka soo bixin dhexdhexaadin la sameeyay dhanka kale marka ay timaado awoodaha military ee dalalka Masar iyo Itoobiya militariga Masar waxa lagu qiimeeyaa inuu ka mid yahay dalka sagaalaad ee awoodda military ee caalamka halka Itoobiya tahay dalka 6aad ee awoodda caalamka militariga tirakoob lagu soo bandhigay bogga Global Firepower Masaaridu awood ahaan waxay kaga sareysaa Itoobiyaanka marka loo eego tirada iyo noocyada hubka kala gedisan ciidanka militariga ee dhulka ee u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee Masar ayaa tiradooda waxa ay gaaraysaa 920,000 oo askari
halka ciidamada hadda ka howlgalaya tiradoodu gaarayso 440,000 oo askari. dowladda Masar ayaa sidoo kale haysataa ciidamo kayd ah oo gaaraya 480,000 kuwaasoo haddii loo baahdo dagaal gali kara saacad walba. Masar waxay haysataa 4,295 oo taangiyada dagaalka ah, 11,700 oo ah baabuurta gaashaaman, 2,189 oo ah gantaalada goobta laga rido iyo 1,084 oo ah madaafiicda wax duqeeya. ciidanka badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo ah kuwa xamuulka diyaaradaha ama maraakiibta qaada diyaaradaha. waxay kaloo haystaan 2 markab oo kale oo ah kuwa dagaalka, 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda muquurta, 45 markab oo ah kuwa kormeera xeebaha iyo 31 maraakiibta ah nooca badda ku aasa miinooyinka ama burburiya miinooyinka badda lagu aaso. ciidanka cirka ee Masar ayaa haysta 215 diyaaradood oo ah nooca dagaalka, 59 diyaaradaha militariga ee xamuulka qaada, 387 oo ah diyaaradaha lagu tababaro ciidamada cirka, 294 oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikabtarka loo yaqaano iyo waliba 81 oo ah helikabtarka wax weerara. ciidamada cirka Itoobiya ayaa haysta 24 diyaaradood oo ah kuwa miiga loo yaqaano, 9 diyaaradood oo ah kuwa xamuulka qaada iyo waliba 20 diyaaradood oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka, 33 diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca ee helikabtarka iyo 8 noocyadaas ah oo kuwa wax duqeeya ah. Itoobiya ma lahan wax ciidan bad ah maadaama aysan bad lahayn, laakiin waxaa jira dadaalo ay hadda ugu jirto dowladda Itoobiya inay saldhig dhinaca badda ah ka hesho wadamada Soomaaliya, Eritrea iyo Djibouti. balse warar hoose ayaa sheegaya inay Itoobiya go'aansatay inay saldhig ciidamada badda ah ka dhisto dalka Djibouti.